يعني روحي وحلي قاد أيو دجال في الدعاية اللي هو حنت كنا عندنا على البيت في مجالده هذي نور وسيد أدور ساعتين مجالد بلدين وحاسك حرق وبيجا والله بنت يلاد هاي إن مركا وحي سور الجري واشي حين عنصر روح عنصر لابتو دجال يوصل أوجد مركا شلي دعوة عليك هنا أو كل شيء تبغى عليك هنا اسمه الكوين هسه شيء يعني مع الجوين سير درتي وحصور تقل واشي نقليم وهو سمايو waxaana bukaanadii loo referal galay guriceel oo ay joogta gacanta ku haysa hay'adda MSF Belgium isbitaalka weyne waxaa gacanta ku haya MSF CH oo ama MSF Swiss sidaa daraadeed macnaha collaborationka naga dhexay darteed ama meesha kaliya ugu dhow ee referal loo sameyn kara inay tahay bukaanadeena ayaa saas darteed loo macnaha referal loogu sameeyey marka galabta ayaa waxaa ii suurta gashay inaan soo gudba oo aan isbitaalka weyn galabtana waxaan sameynay adiga caalkeena 4 ruux saddex kamid ay yihiin muxuu ahay wiil yar iyo laba dumar ah oo muxuu ahay aad u daray isla markaasna qaliin caloosha aan u sameynay waxay ka dhaawacnayeen caloosha halka qofka kalena aanu jir oo iska dhalinyaro uu ahay oo sidna xabad wiiftay isaga soo dhacay marka afartaas ayaan la kulmay galabta alxamdulillah waana ku guuleysanay qaliinkoodii waxay noo sameeyeen marka waa galabtii isniinta weeye marka waa tahay dadka loo qaaday isbitaalka ku yaala guriceel meeqa iyagu ahaayeen wallahi in Cabdinuur dadka waa badnaayeen xataa saakii sida aan reportka ku hayo laba qof oo culus la keenay subaxnimadii hore ayagana sidoo kale guriceel ayaa loo referal galay marka tirada guud waxay laga yaabaa in isku gaarto ilaa iyo dhowr iyo toban marka laga reebo 40 dadka loo gudbiyay guriceel marka dadkaasi ma dad iska shicib ay ahaayeen oo xabadihii wifi ay ku dhaceen mase waxa ku jiray dadkii dagaalamaya kamid ah wallahi Cabdinuur aniga ma joogo laakiin possible dadka inay soo jiraan sababtoo ah dad Soomaalidu waa taqaanaa lama kala garan karo qof kasta waxa uu ehelkiisa ama tuuto ama dhar gaar ama bariis oo ciidan dagaal oo lagu yaqaanana ma jiraan marka qofkaas waa ama macawis ka wata ama su'aal ka caadi ka wata bil uu keeno lama garan karo anagana macnaha ma weydiin su'aalaha qofkaas ma yahay wuxuu ku soo dhaawacmay laakiin muhiimada waxa saarnaa ama deyrada waxa saarnaa in qofkii markii wixii emergency degdeg loo qaban karo in loo qabto macnaha oo xala حقوق الدكانيمو كلها اسبيتالكي مهدا لكن واسكاي دحتا inay sajiraan Dr. Amin adiga xaddi dibba ka qabsatay markii dagaalka ugu badan uu ka socday magaaladana isbitaalka timaadid nabadgeliye xumada dartood ayaad guriga uga soo bixi weeday marka ma jiraan shaqaale kale taas oo kale ay qabsatay oo iyaguna guryahooda iska joogay oo markaas keentay shaqada isbitaalku inay cadilanto way jiraan laakiin waan maanad gareynaa macnaha matalan hadda maalintaas oo kale shiftiga shaqaalihii hore oo ku jiray haddii dhibaato sidaas oo kale ay u dhacdo shaqaalaha inta shifti ku jirtay intaas ayaa shaqada sii wadaysa kuwa kalena ilaa ay ka helayaan xilli ay soo gudbi karaan ama ay meeshii ay rabaan ay ka imaan karaan oo ammaanka uu caadi u yahay waxay joogayaan guryahooda macnaha maadaama ay dhibaato jirta dhibaato kale ma loo macnaha qofkii shaqaalaha riski kale lama gelin karano shaqada waxaa sii wadaya gruubkii hore ee shiftiga ku jiray ayaa shaqada sii wadaya tan iyo xalay waxaa ku jiray shiftigan adiga iyo Dr. Maxamed Xalana iyo anaga waa awalba isbitaalka ilaa xiliyadan dambe oo dhibaatooyinkan iyo ammaan xumada ay iska jirjireen isbitaalka ayaan bisaaxan jirnay aniga ayaa macnaha kaliya muxuu ahay darar xaafada qadada u aaday kabacdina waxaa dhacday sidaan emergency-gan oo dhib ka dhacay laakiin anaga inta badan waxaan deganahay dhakhaatiir ahaan isbitaalkan aan deganahay laakiin shaqaalaha shifti ay leeyihiin shiftigoodana haddii ay problem u yimaado ama emergency ay dhacdo waxaa shiftiga shaqada sii buuxinaya oo wadaya shiftigii hore ku jiray ilaa ay kan kale uu ka helo magaaladii stable oo ku imaan karo ama securitygiisa uu fiican yahay uu ku imaan karo isbitaalka Dr. Cabdiraxiin Cumar Amin waxaa tiri isbitaalkan beledweyne adiga joogo oo qaliinka qaabilsan isbitaal kale isaguna ku yaala guriceel isbitaaladan yaa kharashkooda idinka bixiyo idin la kaalmeeya wallahi isbitaalka wax kaalmeeya ma jiraan waxa kaalmeeya oo kaliya isbitaalka weyn ee beledweyne waa isbitaalkii gobolada dhexe oo ugu weynaa Soomaaliya waxaana gacanta ku haysa hay'adda MSF Swiss haddii ay noqon lahayd shaqaalaha haddii ay noqon lahayd qalabka haddii ay noqon lahayd dhakhaatiirta iyo logisticaba intaba
waxaa gacanta ku haya hay-adda MSF oo bixisa muxuu ahay serviceka ka socda burcelna sidoo kale hay-adda MSF Belgium ayaa iyadana sidoo kale gacanta ku haysa marka ma aha waxa uu ama shakhsiyaad ama cid kale gaar ay bixiyaan laakiin hay-adahaas MSF ayaa gacanta ku haya waxna ka qabtana دكتور عبد الرحيم عمر أمين دكتور قلينك عسبتالك وين مقالة بلد وينه